ilaa iyo 9 qofood ayaa ilaa haatan la xaqiijiyay in uu ku dhacay xanuunka loo yaqaano coronavirus waddankan Britain. madaxa sare ee dawladda waddankan Britain u qaabilsan dhanka caafimaadka isla markaasina ka mid ah guddiga Cobra oo ay dawladda waddankan Britain ay isugu yimaadaan xilliyada waddankan uu ku jiro xaaladda degdega ayaa waxa uu sheegay in ay cabsi yara jirto isla markaasina aad moodo in labadii maalmood ee ugu dambeeyay ay sii kordhayaan dadka qaba xanuunka coronaviruska. shirkaasi uu gudoominayay ra'iisul wasaaraha waddankan Britain Boris Johnson ayaa waxa uu sheegay in dawladda waddankan Britain ay heegan buuxa ay ku jiraan isla markaasina ay diyaariyeen qodobo la doonayo in looga hortago xanuunkani coronaviruska. waxa uuna sheegay in wax waliba ay markaasi ay hor yaalaan isla markaasina aysan haatan aysan ku degdegaynin in la xiro iskuulada gabi ahaan waddankan Britain. sidoo kale waxa uu sheegay in aanan la joojin doonin tareenada dhulka hooskiisa mara oo ay bulshada waddankan Britain aadkay u isticmaalaan iyo basaska labadaba. waxa uuna sheegay in mar waliba ay si toos ah ula shaqayn doonaan dhaqaatiirta caafimaadka ee waddankani oo heegan buuxa ku jira isla markaasina la dhageysanayo qodobada ay mar waliba ay soo gudbiyaan. waxa uuna sheegay in waddankani uu haatan uu heegan buuxa uu ku jiro siiba xanuunka loo yaqaano coronaviruska ayaa muddooyinkii dambe caalamka aad moodaa in uu ku sii faafayo isla markaasina wadamo badan oo qaaradda Yurub ay bilaabeen in ay aad u ilaaliyaan dhaqdhaqaaqa safarada ay bulshada wadamadooda ay iskaga gooshayaan qaybo badan oo ka mid ah caalamka. shirkad ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee waddankan Ingiriiska ee diyaaradaha waddanka gudihiisa ka shaqeeya iyo qaybo ka mid ah qaaradda Yurub ee lagu magacaabo Flybe ayaa maanta waxa ay ku dhawaaqeen in gabi ahaan diyaaradaasi la joojiyay. waxayna sheegeen sababta ugu weyn in ay tahay in ay la kulmeen dhibaato dhanka dhaqaalaha kadib markii diyaaradda aanan wax tikidha sidaas aan laga iibsanin isla markaasina ay suurtagal ahayn in ay diyaaradani ay sii duusho. dhowr bilood ka hor ayay ahayd markii diyaaradda caanka ee lagu magacaabo Times Cook ee hawada ay ka baxday iyagoo markaasi la kulmay dhibaato dhanka dhaqaalaha. dawladda ayaa waxa ay soo gudbiyeen iclaam cusub oo bulshada waddankan Britain loogu barayo habka looga hortago xanuunkani isla markaasina ay bulshada waddankani si gaar ah ay muddooyinkii dambe ay u eegayaan. waa xubinteeni kickoff ee ciyaaraha iyo isboortiga. xiriirka kubadda cagta ee waddankan Ingiriiska ayaa waxa ay sheegeen in aysan joojin doonin ciyaaraha kala duwan ee ka dhacaya waddankan Britain. arrintan ayaa waxa ay ka dambeysay kadib markii dawladda waddanka Talyaaniga ay ku dhawaaqeen in ciyaarahaasi garoomada aan la geli doonin isla markaasina kooxaha ay ciyaari doonaan. cabsida laga qabo xanuunkani coronaviruska ayaa waxa uu keenay in ciyaaro badan oo ka dhacaya waddanka Talyaaniga gabi ahaan ay joojiyeen isla markaasina cabsidu ay aad u badan tahay. wararkani coronaviruska isboortiga wixii ku soo kordha waxaan isku dayi doonaa inaan idinkugu soo gudbino wararka xiga ee waddankani Britain. waa Saalim Salaad Dhoore, wararkii waddankani Great Britain iyo xubinteeni kickoff ee ciyaaraha iyo isboortiga telefishinka Somali Cable International bariga magaalada London ee waddankani Great Britain.